هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. أوي أبا قولنتي إن شاء الله وحبرشة وكسرني سيا ماما يقبلين يوالدين أباها وكلا يا كفالة قادنا وحبرتيها إن شاء الله برنيسا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. maanta ay tahay 12 bisha July 2020 waxaan joogaa machadkii ee magaalada Johor ee qayb kamid ah ururka Daryeel Agoon ee dhiganayeen ururka Daryeel Agoon agoontaydii qayb kamid ay dhiganayeen machadkan maanta waxaan soo geersiinay maadaama agoon ay dhiganayaan qayb kamid ay yihiin waxaan soo geersiinay qada sharaf inuu soo dhiibtay muxsinad ahlu khayr ah oo tala gashay agoontan inay wax ka quudiso xayil ilaahay quraanku wuxuu ku leeyahay ويدعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. أمانتاس أيو الله أماني dadka raashinkooda quudinaya miskiin iyo yatiim iyo asiir soo ilaahay tilmaamay waa dareemi kartaan maanta farxadan ee haystaan caruurtan qayb ka mid ah agoon ay yihiin daryeel agoon ay tahay waxaan soo geersiyay marka qadadan bishii hore maama muxsinad ahlu khayr ah ayaa soo dhiibtay ama soo geersisay machadkan ee qayb ka mid ah daryeel agoon ay dhigtaan waxay soo geersiyeen qado sidaan oo kala ah muxsinadana maanta waxay nooga soo dhigtay 2 neef ayay uga soo dhigtay sidee maanta agoontaas qaybta kamid ay dhigtaan machadkan ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala uga farxiso ala dartiisa isla markaasna Ilaahay subhanahu wa ta'ala maalkeeda Ilaahay barakeeyo awlaadeeda Ilaahay ku barakeeyo muraad badan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu sahlo rabbiga waxaan uga baryayaa muraadka iyo adduunyada ay ka leedahay Ilaahay inuu u sakhiro Ilaahay haddii qurbada Ilaahay ka qaado Ilaahayna subhanahu wa ta'ala maalkeeda iyo awlaadeeda iyo nafsadeeda Ilaahay ku xifdiyo maxaa yeelay rasuulka kaleey salaatu salaam wuxuu noo sheegay agoon hal mar ninkii raashin siiyo nabiga kaleey salaatu salaam Ilaahay wuxuu ka qoodi doonaa thimaartii janno nabigan wuxuu yiri ana wakaafilu yatiimika hatayni fil janna agoontan insha Allah diba idin soo gudbi doona qayb waxa jirta daryeel agoon ay ka heleen kafaalo oo waxbarashada ay ka bixiyaan waxa jira qayb aan wili helin insha Allah waxaan rajaynayaa inay dadka kale ku daydaan dadka sida muxsiniinta agoonta u quudinayo maanta qadadan sharafta leh ka bixinayo insha Allah waxaan rajaynayaa dad badan ayagana inay ka bixi doonaan bilooyinka soo socda ama in gabi ahaanba ay qaado doonaan qadada caruurtan insha Allah. خلق الإنسان من علق